هذا وسدح جولاي سنة 2026 تبنتا عاونا قضبضان إذن كوغوها يوحا كامدا madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa fariin u diray hogaamiyaha wadanka Ruushka Vladimir Putin waxana uu leeyahay jooji dagaalka macna darrada ah aad ku jirto taas oo la xiriirta weerarka lagu qaaday dalka Ukraine waxana uu Trump leeyahay waxaan diyaar u ahay dhiiggaas inaan joojiyo xilli isaga iyo wadanka Iran ay iska lushaan dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ayaa hanjabaad culus u jeedisay qaar kamid ah wadamada qaliijka uu kamid yahay dalka Bahrain waxa ay tilmaameen wadankaasi inuu dagaalka si toos ah uga qayb qaatay isagoo fasaxay saldhigyadiisa waxaana loogu baaqay manaama haddii xaalku sidaasi uu sii noqdo inay tallaabooyin kale wajahi karayso wasaaradda amuraha dibadda wadanka Iran ayaa ku dhawaaqday in nabadda bariga dhexe loo sinaado haddii kale aan u jirin cid nabad heli karaysa muxuu caawa u hanjabaya Abbas Araghchi wasiirka amuraha dibadda maxbuus ku jira xabsiyada ee gacanta ay ku hayaan nidaamka Israa'iil ee dhulka Falastiin ayaa ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan xilka ugu sareeya ee wadankiisa haddaba taasi suuragal ma tahay inay ka soo saarto xabsiga uu muddada dheer ku jiray maxbuuskaasi iyo taariikhdiisa ayaan dib ugu jaleeci doonaa barnaamijka inta aan wada joogno ciyaarta ay nala socotay Turkiga iyo Masarna waxay kala saxdeen heshiis taariikhi ah qodobadaas iyo dhacdooyin kale ayaan ku fiirin doonaa barnaamijka caawa iyo tabinta wararka caalamka iyo diblomaasiyadda meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada ciyaarta ayaa digniin u dirtay wadamada qaliijka waxaana la sheegay duqeymihii ugu baahnaa inay la kulmeen wadanka Bahrain sababtuna ay ahayd wadankaasi inuu qayb ka ahaa dagaalkii lagu hayo wadanka Iran hadal ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ayaa lagu sheegay intani ay ka dhigan tahay dowladaha in ay guran doonaan tacabka waxyaabaha ay gashteen wadanka Iran waxa sidoo kale ay dowladdu tilmaantay joogitaanka ciidamada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe inay noqonayaan mid khatar ah oo nabadda gobolkaasi taaban doonta ergeyga joogtada ah ee Iran u fadhiya qaramada midoobay Amir Saeed Irawani ayaa waxa uu sheegay in dalal ay kamid tahay Bahrain ay door ka qaateen fuudeynta weerarada lagu qaaday wadanka Iran isagoo ku dooday in arintaasi aysan ahayn mid la dafiri karayo ilaa iyo hadda waxa uu tilmaamay in Iran ay ka warhayso dowladaha tallaabooyinkaasi qaybta ka ahaa sidaas darteedna weerar kasta oo wadan carbeed lagu qaado lagu dhisay xog muhiim ah oo ay soo gudbiyeen hay'adda muqaabaraadka Iran waxa ay sheegtay in dowladdaasi way aaminsan tahay buu yiri in qaar kamid ah dalalka gobolku ay si toos ah ama si dadban ugu lug lahaayeen una sahleen weerarka lagu qaaday wadankiisa wadamada ay Bahrain kamid tahay waxay fududeeyeen weerarka lagu qaaday Iran arintaasi wax shaki ah kama qabno ayuu yiri ergagan u fadhiya Iran jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa digniin aad u xoogan ayay Tehran u jeedisay sidoo kale wadamada qaliijka ee gacan saarka la leh Washington ergeyga Iran ayaa sidoo kale u digay dalalka qaliijka inay dib u qiimeeyaan xiriirka dhinaca amniga ay la leeyihiin Washington waxana uu sheegay in joogitaanka ciidamada Mareykanka ee gobolka uusan dalkaasi u keenayn amni iyo xasilooni balse uu horseedi karo colaad iyo burbur xoog leh dowladaha qaliijka waa inay ogaadaan joogitaankooda militariga Mareykanka inuusan keenayn nabad balse uu gobolka u horseedi karayo dhibaatooyin iyo burbur ayaa hadalkaasi lagu yiri jawaab uu u diray Mareykanka ayaa waxay sidoo kale ahayd mid xasaasi ah isagoo ka jawaabaya hadalla uu jeediyay ergeyga Mareykanka ee qaramada midoobay Irawani waxa uu ku eedeeyay Washington in danaha Israa'iil ay ka hormarayso kuwa askarteeda Mareykanku kan askartiisa u horaya baliri dhinaca Israa'iil sidaas darteed Israa'iil ayaa noqonaysa waxa ku saabsan heshiiska dagaalka iyo go'aamintiisaba hadal ku saabsan aaska Khamenei ayuu meesha ka jeediyay iyadoo dunida indhaha ku hayaan madaxda ka qayb gali doonta iyo waliba mujtaba Khamenei uu ka soo muuqan doona aaskaasi suuragalna ay tahay in Israa'iil ay markale abaabuli karayso weerar dagaal oo gobolka bariga dhexe markale ku celinaya xiisadda inay ku laato Iran ayaa sidoo kale sheegtay in munaasabadda aaska Khamenei warbaahinta Iran ay ku tilmaantay hogaamiyihii shahiiday sida ay tilmaameen ay dunida u arki doonaan heerka taageerada oo nidaamka islaamiga ka haysto shacabka Iran
digniin hore oo ku saabsan hanjabaado Israa'iil ayaa soo baxay taasoo u muuqata dowladda Iiraan inay u tooghayaan. Arbacadii ergeyga Iiraan ayaa si kulul uga digay hanjabaadaha uu sheegay inuu jeediyo wasiirka dagaalka Israa'iil Katz kaas oo la xiriiray hogaamiyaha cusub ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan Mujtaba Khamenei. Iiraan waxa uu cadeeyay in Tehran ay hadalkaasi u aragto kuwa halis weyn leh isla markaana oo u dhaqmayso heerka ugu sareeya ee feejignaanta. Hadalkan ayaa imaanaya xilli wali ay taagan tahay xiisadda inay sii kululaato oo cabsidu ay aad u xoogan tahay dagaalka dib in lagu laaban karo. dhinaca kale wasiirka amuraha dibadda wadanka Iiraan Abbas Araghchi ayaa jawaab kulul siiyay nidaamka Israa'iil waxana uu yiri nabadda bariga dhexe hal meel oo kaliya saameynteeda nabad darrada ma taaban doonto. cid kasta miraha waxa ay tacbato ay guran doontaa ayuu ku yiri hadalkiisa. wasiirka amuraha dibadda Iiraan Dr. Abbas Araghchi ayaa sheegay in ay la sugi karin baalayiri nabad waarta oo ka hana qaada bariga dhexe haddii aysan noqon mid loo dhan yahay oo ay wada gaaraan dhammaan dalalka gobolka isla markaana ay ka madax banaantahay baalayiri faragelin shisheeye. Araghchi ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id uu horay u qabtay waxana uu tilmaamayaa in tani ay tahay xiisadda ugu weyn. wasiirka ayaa adkeeyay in amniga iyo xasiloonida gobolka aysan jirin cid hadda faragelinaysa quwadaha shisheeyana loo baahan yahay inay aad indhaha ugu hayaan. nabadda gobolkeena kama ilaalin karto haddii aysan noqon mid loo baahan yahay dhammaan dalalku inay wada saameyso. waxa uu sidoo kale sheegay in iskaashi badan wadamo ay leeyihiin hase ahaatee aanu jirin hadda cid ay si gooniya ugu lug xirnaan karaan. haddii aan eego wararka kale oo caawa wargeysyada ay qorayaan maxbuus Falastiini ah oo gacanta ugu jira nidaamka Israa'iil muddo dhowr sano ahna ay halkaasi ku hayeen ayaa lagu soo waramayaa inuu hadda u taagan yahay xilka ugu sareeya ee maamulka Falastiiniyiinta waxana uu bedeli doonaa Mahmoud Abbas haddii la doorto. waa siyaasi si weyn u fahansan dowladnimada casriga ah kaalina ku leh dadaalada diblomaasiyadda iyo waliba xoojinta gobolkaasi in muddo Israa'iil ayaa muddo dheer xabsi ku haysay. ilo gaar oo Falastiin ayaa sheegaya in Marwan Barghouthi oo ka tirsan hoggaanka sare ee dhaqdhaqaaqa Fatah isla markaana xubinka guddiga dhexe ee ururkaasi uu go'aansaday inuu u tartamo xilka madaxweynaha Falastiin haddii doorashada la qorsheeyay la qabto sanadka soo socda sida ilo xog ogaala ay sheegayaan warbaahintana u xaqiijiyaan. Barghouthi ayaa qarankiisa u sheegay inuu si rasmi ah u tartami doono madaxtinimada Falastiin doorashadaasi oo la filayo in la qabto rubaca hore ee sanadka inagu soo foole. isha xogta bixisay ayaa sheegaysa in Barghouthi uu ku adkeysanayo go'aankiisa isla markaana uusan ka laaban doonin musharaxnimadiisa haddii doorashada madaxtinimada la qabanayo sida uu hadalka u dhigay. Marwan Barghouthi ayaa muddo ku dhow 25 sano ku xiran xabsiyada Israa'iil waxana lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu saameynta badan ee Fatah iyadoo taageerayaal badan ay u arkaan in uu leeyahay taageero ballaaran oo shacabka Falastiin danahiisa ka shaqeyn karaya. cadaadis lagu saaraya in doorashada la mideeyo ayaa waxay u muuqataa inay wali u abuurayso fursad ah in la dooran karo. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in Mareykanka iyo dalalka midowga Yurub ay madaxweynaha Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas Abu Masin ka codsadeen in doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtinimada la qabto isku mar. arrintan ayaa ka duwan qorshihii hore ee maamulka Falastiin kaas oo dhigayay in doorashada baarlamaanka la qabto bisha November ee sanadkan isla markaana doorashada madaxtinimada dib loo dhigo rubaca hore ee sanadkan. digreeto ayaa la filayaa in madaxweynaha ee dowladda Falastiin Mahmoud Abbas uu soo saaro. ilo Falastiini ah ayaa hore u sheegay in Mahmoud Abbas Abu Masin uu qorsheynayo in uu soo saaro digreeto madaxweyne oo lagu qabanayo doorashada bisha November. hase yeeshee wararku waxay tilmaamayaan in cadaadis diblomaasiyadeed oo uga yimid Mareykanka iyo midowga Yurub ay u horseedeen in dib loo eego qorshahaasi sida doorashada baarlamaanka iyo madaxtinimada in la qabto isku waqti. haddii Marwan Barghouthi uu si rasmi ah ugu dhawaaqo madaxtinimadiisa waxay noqon doontaa mid si weyn u soo jeedatay indhaha siyaasadda Falastiin maadaama wali uu ku xiran yahay xabsiyada Israa'iil isla markaana uu leeyahay mid ka mid ah taageerada ugu xooga badan ee gobolkaasi uu ka wada sida doodiisa ay u dhigeen.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariin xasaasi ah u diray madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin tan oo noqonaysa mid dhinacyadu ay hadda isdhaafsanayaan. waxay ku soo aadaysaa arrintan kadib markii Ruushka uu weerar ballaaran ku qaaday wadanka Ukraine dagaalkiina uu sii xoojiyay marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in la gaaro heshiis lagu soo afjaro dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine kadib weerarka cirka ah ee ballaarnaa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine caasimadda magaalada Kiev taas oo sababtay dhimashada ugu yaraan 21 qof. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee France Agence France Presse in madaxweynaha Trump uu mudnaanta siinayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka. madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu leeyahay dareen bini'aadanimo waxa uu doonayaa in la gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalkan si loo soo afjaro dhinaca macna darrada iyo dagaalka daadanaya. weerarkan ayaa waxa uu yahay kii ugu weynaa ee wadanka Ruushka uu qaado tan iyo markii dagaaladu ay dib u curteen. Ruushka ayaa waa berigii Khamiista ee saaka ahayd weerar cirka ah oo aad u xooggan ku qaaday magaalada Kiev tan iyo markii dagaalka uu bilowday bishii Febraayo 2022. duqa magaalada Kiev ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ruushka ay magaalada ku weerareen boqolaal diyaaradood oo aan duuliye lahayn iyo 10 gantaalo ah kuwaas oo geysta burbur baaxad leh. mas'uuliyiinta Ukraine ayaa xaqiijiyay in weerarka ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa. hay'adda Lanqeyrta Cas ayaa digaysa Zelenskyna waxa uu leeyahay waynu ka jawaabi doonaa weerarka oo ninka la yiraahdo Putin loogama aamusi doono. madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dalkiisa uu si dhaba uga jawaabi doono weerarka Ruushka waxaana uu ku eedeeyay Moscow inay si ulakac u beegsanayso dadka rayidka ah si ay u weeqdo niyadda shacabka Ukraine. Zelensky ayaa sidoo kale rajo ka muujiyay in dalkiisa uu helo taageero dheeraad ah oo ka imaanaysa wadamada NATO oo shirka ay ku qabanayaan magaalada Ankara kaas oo dhawaan la filayo in si rasmi ah loo soo gabagabeeyo. ugu dambeyntiina haddii aan eego wararka caawa ka imaanaya gobolka Bariga Dhexe, dowladda Turkiga iyo Masar ayaa gaaray heshiis ay kaga fakarayaan si ay uga badbaadi karaan xiisadda ka taagan gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz. heshiiskan ayaa lagu tilmaamayaa mid si weyn looga fakaray. dowladda Turkiga iyo Masar ayaa si rasmi ah u kala socday heshiis isafgarad ah oo lagu ballaarinayo iskaashiga dhinaca isticmaalka marinada gaadiidka caalamiga ah. tallaabo loo arko mid hore u qaadaysa isku xirka ganacsiga u dhaxeeya Yurub, Aasiya iyo Bariga Dhexe. wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha Turkiga Abdulqaadir Oglo ayaa Khamiistii shaaciyay in heshiiska lagu la socday dhigiisa Kamil Al-Wazir kadib kulan laba geesood ah oo ka dhacay magaalada Istanbul. kulanka ayaa dhacay intii ay socdeen shirweynaha shanaad ee badaha Turkiga kaas oo Istanbul ay martigelinayso muddo 2 maalmood ah. wasiir Oglo waxa uu leeyahay heshiiskan waxa uu saldhig u noqon doonaa in si iskaashi dhow loo sameeyo dhinacyadan isla markaana isku xirinada marinada ay noqon karaan kobcinta dhaqaalaha iyo waliba heshiisyada wadamadaasi ayaa noqonaya mid sii xoogaysanayay iyadoo sanadihii ugu dambeeyay dowladaha Turkiga iyo waliba dowladda Masar ay bilaabeen iskaashi aad u ballaaran. habeen wanaagsan khiyaarta